مقدشنا لشيدسك عاقة ما بانو دulqaad ay heesa dulqaad ay ku wees dulqaad ay muqdisho adiga ku heeso adigaas ee muqdisho ku heeso dulqaad ay leedahay alxamdulillah shukran rabbil alamin ana kasi dulqaad badan shay isku garta ana qofka ka hadlooya okay ha fiiriha maxarkosi muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa maslaxo iyo catoosh yare oo dagaalkooda hadda uu soo kacay barta social media-na uu qabsaday aadna hadda maslaxa live ee TikTok ku soo fuushay ay ku cadeysay in catoosh ay aad u bahdishay eena caysay ay live TikTok ka dhaxay si aan kula wadaaga daawade fadlan nagu soo biro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanaya gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like ta la dhacayo wixii fikirkaaga commentiga noo wadaag maslaxo oo catoosh live TikTok ay soo fadhiisatay oo aad ugu bahdishay oona ku dhaxaysay waxba aanan u reebanin oo aadna u caysay maslaxo oo dagaal hadda ayadii catoosh uu ka dhex qaraxay catoosh oo lamaano cusub asigana yeeshtay oo arintaasi aananba ka hadlaynin maslaxo oo comment oo WhatsApp-ka qoraalo catoosh uu ugu soo qoray barta social media live dhex keentay ummadoo idin la wada tustay in catoosh uu ilaa hadda ka daba dhimanayo uu qoraalo u soo qoraayo uu live-ka ay ka dhex cadeysay ee message ayada catoosh uu u soo diray ee live-ka dhex keentay in catoosh ayada gabi ahaanba aysan rabin ama u soo jeedin uu ka daba ordaya ayada uu ka daba nacamleenayo ay sheegtay ay barta social media-na ay hadda ka dhex cadeysay in ayada uuba ka daba dhimanayo iyo jaceylkeedana uu u dhimanayo catoosh yare ee ayadanba u soo jeedin ay barta social media-na ay ka cadeysay ee aadna u caysay ay ku leedahay ilkahaasi dhaadheer ayaa catoosh ku nacay iyo foolxumadaasi miiran iyo san bini'aadanka uu ku yaalin sankaasi weyn iyo waxyaabo badan caatimo badan oo kulkulul ayadoo xanaaqsan ay live TikTok ay ka soo gashay ay caatin waxba aynan u reebanin ay caasay iyo xanaaqi oo ka tambadiyay oo WhatsApp-ka qoraale ay sheegtay in catoosh oo u soo qoraa uu ka daba dhimanayo ay keentay laakiin catoosh oo hadda dadka baraha bulshada idil aanan ka wada shakinin oo dalkaasi Nairobi jooga muuqaalo oo hadda gabar cusub in uu jacayl iyo xiriir la wadaagay uu bartiisa TikTok soo dhigayay gabar lamaano cusubna oo catoosh helay dadka baraha bulshada qaarkoodna aynan ka shakisaneen maadaama catoosh hadda xabad yaroo cusub oo dhayla uu helay sida hadda laga shakinayo maslaxo ay tahay dad badanna ay commentiyo u soo qoreen ay maslaxa si xanaaqday catoosh ayaa weli jeceshahay ee leeyihiin catoosh kuma soo jeedo ay qof cusub ayuu dalkaasi Nairobi ku helay maslaxo oo hadda afka ku furatay catoosh in aysan u baahnayn waxbadan ay ka leheen laakiin ayada uu WhatsApp-ka qoraalo u soo qorayo uu ka daba ordayo muuqaalkeeda ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow daawade wixii fikir ah ka qabtidna commentiga noo la wadaag qaybta aragtida soo dhawow daawade Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam musiibo ku dhacday wiil yar oo calooshu ku weynaatay cayr dartiisa xataa futudu xataa uu qaadi karin ashas manaag xaamila loo maleyn ya habluhu markay taagan yihiin ee badarka kariyaan ee karinayaan camal uu taagan yahay waa hawar xaamilo cunto iyo kar ina aan soo hadlo damcino shacab ku disig simkaas la u diro is garfe